walaalayaal dhammaan muwaadiniinta qiimaha badan ee Ilaahay ka dhaliyay jamhuuriyaddeena Soomaaliland qarankeenu maanta waxa uu taagan yahay isgoys khatar badan waxa curyaamiye xasilooni darro siyaasadeed hoos u dhac dhaqaale xiisada nabadgeliyo tafaraaruq bulsho dowladnimadii oo hagaastay iyo xiriirkeena dunida oo ah mid halkii ugu hooseeyay gaadhay dhibaatooyinkaas oo ka dhashay aqoon darro siyaasadeed iyo xilkasnimo darro hogaamineed oo ay ku kacday xukuumaddii aynu xilka u dhiibanay waxa dhintay kalsoonidii dadweynuhu uu ku qabay dowladnimada waxa istaagay horu socodkii qaranku ku soo caanbaxay 27 sano ee ka horreeyay Muuse Biixi walaalayaal Somaliland hadday hore in badan inoogu soo hiilisay maantana iyada ayaa hiil iyo abaal celin inooga baahan waxa la joogaa waqtigii intii aynu soo hadhay dabaqabatayn lahayn xilligii aynu u midoobi lahayn soo noolaynta rajadeenna horu socodkeenna midnimadeenna daryeelka nolosha maatideenna iyo difaaca qarannimadeenna maanta qof kasta oo garaad leh waxa uu og yahay in madaxweynenimada Soomaaliland aanay shaqo fudud ahayn in kursiga aanu tartamayo aanay raaxo iyo xaraga oolin anna xogogaal baan u ahay culayska hawshan inoo taala laakiin damiirka ay faraya xil gudo oo hagabin qarankaaga waxay muuqatay in maanta ay jirto fursado lagu dabaqabatayn karo xaaladda darise ay sii fogaanayso haddii aanay maanta la dabaqabatayn waxa kalsoonidaas weyn ugu beerayna waa niyad wanaagiina iyo jacaylka aad dalkiina u haysaan oo aan ogahay inaad dartii garab igu siin doontaan rumaynta wacadka aan naftayda kula galay in si daacadnimo iyo hagar la'aan ah aan idinku shaqeeyo oo aan idinka shaqaysan si aan dalkeenna ugu hogaamiyo mustaqbal ka rajo iyo ilays badan kan maanta aynu ku jirno walaalayaal waxaan ku kalsoonahay in qarankeenna aan saxal bixin karo inaan dhayi karo dhaawacyada soo gaadhay dowladnimadeenna iyo wadajirka ummadeenna inaan keeni karo dowlad wanaag iyo nidaam isla xisaabtan inaan u dhega nuglaan doono su'aalaha iyo tabashada muwaadiniintu heer kasta oo ay bulshada kaga jiraan oo aanan isu dhagooleynayn inaan ka shaqayn doono xaqiijinta cadaaladda garsoorka wax wada lahaanshaha iyo adeegyada dowladda ay noqon doonaan kuwo si siman oo fudud muwaadiniintu u gaari karaan waxaan tacab gelin doonaa xoojinta xirfadaha dhallinyaradeenna iyo haweenkeenna waxaan mudnaan siin doonaa sidii fursado shaqo iyo ilo dakhli loogu abuuri lahaa hablaheenna iyo wiilasheenna walaalayaal maanta waxa la sii eegtaa inooma hadhin aan codkeenna ku keenno isbeddel midho dhal ah oo qarankeenna samaha u horseeda iyo iskaashi aynu qarankeenna ku soo celinno tubtii saxda ahayd iyo mustaqbal ifaya muwaadin maanta talada adaa leh go'aanka aad qaadato ayaa dhisi doona Somaliland ka dambaysa 13 November waxaan idinka marti ahay dhammaantiin inaad codkiina ku keentaan isbeddel abuura Somaliland mid ah oo xasilooni iyo barwaaqo ku badhaadha muwaadin anigu waxaan si cad oo waafi ah idinku ballan qaadayaa inaydan ku hungoobi doonin kalsoonida aad codka igu siinaysaan maanta fartiinana aad u aayi doontaan